السلام عليكم. halkan waa qaadasho channel. maanta waxaan soo qaadan doonaa arrin maalmahan baraha bulshada xoog loo hadalhayay waliba qaybaha technology-ga. ka hor inta aanan gelin muuqaalka, fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay, subscribe dhaho channelka, siina share garee. shirkadda caanka ah ee Apple ayaa soo bandhigtay mashruuca mustaqbalka ee muraayadaha ama okuyaalaha. John Prosser oo isagu caan ku ah xogta ama xanta Apple ayaa sheegay inuu yahay mashruucii ugu horeeyay abid ee la daafro. hore waxa uu soo saartay mid u yara dhigma Google iyadoo ugu magac dartay Google Glass, laakiin ma ahayn mid shirkadda ku faa'iiday. sanadkii 2014 ayay soo saartay iyadoo soo waday 7 sano kadib lacag dhan $1,500 ayay suuqa ku soo gelisay, iyadoo xilliga ka dhignayd lacag aad u badan, wayna ku khasaartay shirkadda Google. Apple Glass waa mid la jaanqaadaya technology-ga casriga ah ee 2020 wuxuuna la imaan doonaa AR oo laga soo gaabiyay augmented reality, xaqiiqda la buunbuuniyay. shirkadda AR ayay heshiis galeen Apple, sidoo kale waa mid leh kaamirooyin u sahlaya inuu sawirka ka dhigo 3D, speakerna ku leh dhegaha, waana mid plastic ah oo qaadan doona wireless charging. waana shaashada aad ka daawan karto ciyaaraha, filmada iyo wicitaanka oo u qalanta shaashada mobilka. wuxuu ku daray John Prosser inuu la imaan doono Apple 12 ama iPhone 12 Pro oo ay shirkaddu soo wado, ama sidoo kale Apple Watch 6. Prosser ayaa ku dhawaaqay qiimaha saxda ah ee uu suuqa ku soo gali doono Apple Glass, waana qiimo aad uga yar kay Google ku soo gelisay suuqa, waana $499. iPhone 12 Pro oo noqonaya mid taxane ah ayaa la imaan doona aalad ay dadku wada sugi layihiin. sidoo kale John wuxuu dhahay wuxuu imaan doonaa March ama June 2021, iyadoo aad la iskugu khilaafay halka lana dhahay kama sokayn doono mashruucan 2023. si kastoo ay ahaato, waan wada sugaynaa Apple Glass. fadlan haddii ku cajabiyay muuqaalka, like saar, siina share garee.